وعن wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena habeenimana waxaa kamid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo ku guuleysatay in la xalliyo tabashooyinkii ay qabeen reer Hiiraan iyo maamulka Hirshabeelle oo arintaas ka garaabay iyadoona heshiis hordhaca ay gaareen dadka deegaanka gobolka Hiiraan iyo sidoo kale maamulka Hirshabeelle haddaba maxay tahay saddexda qodob oo Cali Guudlaawo ku heshiiyay dadka deegaanka si loo xalliyo khilaafkii xoogganaa ee u dhaxeeyay dadka deegaanka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo maamulka Hirshabeelle madaxweyne Cali Guudlaawo ayaa markii ugu horeysay tagay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan isagoona ku guuleystay inuu xalliyo tabashooyinka ay qabeen odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka waxaana sidoo kale ogolaaday in wada hadal la furo dadka ka soo horjeeda ee hubaysan isagoona sheegay in xal lagu raadiyo arrimaha gobolka Hiiraan aysan xabad xal ahayn doonayna in la dagaalaan dadkaasi balse ciidamada dowladda dhexe loo geeyay inay sugaan amniga doorashada golaha shacabka iyo sidoo kale in la dagaalamaan ururka al-shabaab dhinaca kale madasha golaha wadatashiga qaran ayaa shir yeeshay kadib goodintii dowladda Mareykanka ay sameysay iyadoona sheegtay in xayiraad la saari doono siyaasiyiinta ku horgudban doorashooyinka dalka Roble oo cabsi badan soo wajahday ayaa ku orday in shir qaab ka fogaan aragga ah uu qabto si doorashooyinka loo dedejiyo iyadoo waqtiga uu qabtay Mareykanku ay kaliya uga dhiman tahay 15 casho dowladda Mareykanka ayaa shalay u goodisay mucaaradka iyo ra'iisul wasaare Roble maadaama iyagu ay doorashada gacanta ku hayaan cabsi halkaas ka soo wajahday ayayna hadda u dedejinayaan arrimaha doorashooyinka warar kale oo soo baxaya ayaa la sheegayaa in madaxweyne Farmaajo uu ka gudbiyo warqad Roble iyo kooxaha doonaya in ay doorashada dib u dhigaan maadaama ay soo wajahday kalsooni darro aad u xun waa markii uu madaxweyne Farmaajo ku guuleystay xildhibaanadii ugu badnaa ee ka soo gala deegaanada iyo maamul goboleedyada qaar Saciidan iyo Axmed Madoobe oo dib u dhigay kuraasta doorashooyinka golaha shacabka ee ka soo galaya deegaanadooda iyadoo aan wali la xallin tabashooyinkii uu Axmed Madoobe ka qabay magaalada Garbaharey ee gobolka Gadow xildhibaanadii lagu soo dooran lahaa waa sidee xaaladda odayaasha dhaqanka iyo damaca Axmed Madoobe mas laga yaabaa in doorashada sida uu Roble doonayo Axmed Madoobe gacan ku yeesho doorashada ka dhacaysa magaalada Garbaharey ee gobolka Gadow qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato channelkeena calanka TV subscribe oo furo gambalelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena mahadsanid saddex qodob oo Cali Guudlaawo ku xalliyay tabashadii reer Beledweyne iyo sidoo kale caawintii uu madaxweyne Farmaajo ka caawiyay inuu gaaro magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gudoomiyaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawo iyo xagaradka reer Beledweyne ayaa heshiis gaaray khilaafkii ka tagnaa muddadii sanadka ahayd ee sababay inuu Cali Guudlaawo dhisi waayo xukuumad iyo inuu magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gaari waayo ama inuu xitaa ku qasbanaado inuu baajiyo xafladiisa caleemasaarka ciidan madaxtooyada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay geysay magaalada Beledweyne ayaa dhawaan sababay inuu Guudlaawo tago magaaladaasi iyadoo aysan dhicin wax rabshado ah maadaama ciidan xoogan uu geeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo saaxiib dowlaha Cali Guudlaawo sidoo kalena ka dambeeyay inuu kursigaasi ku fariisto hadalkii koowaad ee uu jeediyay Cali Guudlaawo markii uu Beledweyne tagay ayaa kamid ahaa waxyaabaha furaha u noqday inuu wada hadal la yeesho bulshada magaalada gaar ahaan beesha tabashada qabtay inkastoo arrintan muddo laga soo shaqeynayay haddana Cali waxa uu sheegay inuu maalintaasi diyaar u yahay xallinta tabasho kaste haddii ay tahay mid beeleed iyo mid deegaan ama mid shakhsiyadeed kulan muhiim ah oo ay Beledweyne ku yeesheen Cali Guudlaawo iyo cuqaasha beesha tabashada qabtay ayaa laga gaaray heshiis buuxa sida uu maamulku faafiyay muuqaal la sii daayay waxaa ka muuqatay odayaasha beesha oo cudurdaar bixinaya kulanka waxaana ku bilowday in Cali la raali geliyay in loo diiday inuu tago magaalada Beledweyne intaas kadib waxaa loo gudbay qodobada muhiimka ah ee salka ku haya tabashada beeshan waxay bilaabatay markii ay waayeen kursiga hoggaanka maamulka Hirshabeelle iyada oo ay Jowhar isku heshay caasimad iyo hoggaanka maamulka saddex qodob ayaa si buuxda loo dul istaagay kulanka ka dhacay magaalada Beledweyne kuwaas oo la xaqiijiyay in isafgarad laga gaaray midka koobaad Cali Guudlaawo waxaa la hordhigay
inuu caasimadda soo wareejiyo maadaama uu hogaankii maamulka qaatay. cali waxaa la sheegay inuusan arrintaasi diidin markii horena uusan diidmo ka qabin, balse waxa uu sheegay inuusan isagu bixi karin oo ay tahay in safi sharci ah loo maro oo loo baahan yahay codka 3 meelood 2 ka mid ah xubnaha baarlamaanka Hirshabeelle. cali Guudlaawe waxa uu odayaasha u sheegay in arrintaasi kala shaqeynayo uuna diyaar u yahay 63 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle waxay ka soo jeedaan gobolka Hiiraan. waxa uuna cali u sheegay odayaasha inay taasi ka caawinayso in mashruucan degdeg loo hirgeliyo. odayaashii waxaa la sheegay inay ku qanceen in arrintaasi loo wajaho baarlamaanka. waa mid labaad ee awoodda hogaamiye ku-xigeenka maamulka. cali Guudlaawe waxaa lagu xujeystay inuu awood badan haystay markii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle, sidoo kalena ay beeshiisu haysatay wasaarado muhiim ah. waxaa la weydiistay inuu soo wareejiyo waxay isaga iyo reerkiisu haysteen markii uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka. waxaa la sheegay in cali uu taas aqbalay oo uu hoosta ka xariiqay degmooyin cusub. odayaasha dhaqanka waxay cali Guudlaawe ka dalbadeen in degmooyin cusub la siiyo ama kuwii la magacaabay xilligii Cabdulaahi Cusuble inuu sharciyadooda baarlamaanka geeyo uu dhammaystiro degmooyinnimadooda. waxaa la sheegay inuu cali Guudlaawe aqbalay qodobkaasi isagoo xusay inay jiraan degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe oo iyaguna miiska saaran uuna isku dari doono, sidaasna uu baarlamaanka ugu gudbin doono si looga dhigo degmooyin rasmi ah. waxaa kaloo kulanka lagu soo hadal qaaday in kuraasta golaha shacabka ee taalla magaalada Beledweyne in doorashadooda ay si hufan cadaalad ah u dhacdo, iyagana waxaa la sheegay in mabda ahaan la isla qaatay. intaas ayaana ugu muhiimsanaa doodii cali Guudlaawe iyo reer Beledweyne, waxaana la sheegay inuu kulanka ku soo dhammaaday si caloolfiyoobi leh. dhinaca kale golaha wadatashiga qaran oo kulan degdeg ah yeeshay kadib xayiraadii Mareykanka. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa madaxda maamul goboleedyada dalka oo ku midaysan golaha wadatashiga qaran ayaa xalay yeeshay kulan degdeg ah maalin kadib markii Mareykanku uu soo rogay xayiraad la saaray mas'uuliyiinta Soomaalida. kulankan ayaa golaha wadatashiga qaran ku yeesheen hab fogaan arag ah ayaa looga hadlay dhamaystirka howlaha doorashooyinka, xaaladda amniga iyo sidii loo qaban lahaa abaaraha dalka ka jira sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. faahfaahin intaas dheer lagama bixin kulankaasi, hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay in golaha ay isku dayayaan in doorashada golaha shacabka ay dhammeeyaan 25 Febraayo oo ah muddada uu qabtay Mareykanka, taasi oo naga xigta 15 maalmood. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa talaadadii ku dhawaaqay soo saarista xayiraadda fiisa oo ka dhan ah shakhsiyaadka hadda xilalka ka haya iyo kuwa horey u soo qabtay Soomaaliya oo lagu eedeynayo inay mas'uul ka yihiin waxyeeleynta hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya. Antony ma shaacin magacyada shakhsiyaadkan lagu beegsaday siyaasad ahaan. Mareykanka ayaa horey u sheegay inuu xayiraad la beegsan doono madaxda Soomaalida haddii aan doorashada lagu dhammayn ka hor 25 Febraayo, waxaana laga cabsi qabaa inuu soo rogo kuwa cusub. haddaba golaha wadatashiga qaran oo arrintaa ka cararaya ayaa ku dadaalaya in 25 Febraayo ka hor ay doorashada ku qabtaan. warar cusub oo aan helnay ayaana sheegaya in Mareykanku uu ladan lahaa qaar ka mid ah maamul goboleedyada diidan in doorashadu dhacdo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble oo ka cabsi qaba in madaxweyne Farmaajo dib ugu soo laabto xukunka. Roble ayaa dhawaanaha kulamo xasaasi ah la soo qaatay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo madaxda reer Carbeed ee khaliijka iyo sidoo kale qaar ka mid ah dalalka dariska la ah Soomaaliya ee cadawga ku ah. waxaana Roble loo sheegay haddii doorasho dhacday 25 Febraayo xildhibaanada la soo gabagabeeyo in madaxweyne Farmaajo uu dalka madaxweyne ka noqon doono, sidoo kalena ay dhibaato ku tahay dalalkaasi maadaama ay diidan yihiin in madaxweyne Farmaajo uu dalka dib ugu soo laabto. haddaba halka waxaa inooga wararkeennii habeenimo fadan daawada haddii ay tahay markii koobaad soo booqato janaalkeena Calanka TV subscribe oo furo gambaraalka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena.